maanta waxaan rabaa inaan halkan idinkugu soo gudbiyo video yar oo aan ugu talagalay asxaab badan oo ka cabanayso exchange-yada oo centralized ka ah baan arkay. kadib baan waxaan go'aansaday inaan ku caawiyo wixii aan isleeyahay at least faa'iido u tahay iyagana. halka maanta waxaan rabaa inaan idinku soo gudbiyo exchange decentralizer oo la mid ah exchange-yada caadiga ah oo Binance iyo sida KuCoin oo kale ah, laakiin exchange-gan waa decentralized. waxa ilaahay abuurtay oo lagu weydiinayo iyo wax uu verification iyo password iyo waxaas passport iyo waxaas uu kaa rabo ma jirto. adaa ismaamulayo, adaa waxaaga ku shubanayo, adaa waxaaga ka roganayo, ku trade garaynayo. wax alaala wixii exchange-yada uu leeyahay waxaa ka heli kartaa App Store-ka iyo Play Store-ka labadaba, haddaa iPhone haysatid iyo haddaa Android haysatidba. appka markaad soo dejisato halkan uu ku keenaya. halkan markuu ku keeno waxaad taabanaysaa appka trading iyo waxa loogu talagalay trading iyo in laga iibsado intaba waa uu leeyahay. waa ku trade garayn kartaa waanad ka iibsan kartaa. weliba wuxuu ku fiican yahay appkan free xitaa waa ku helaysaa iyadoo wax fee aan lagaa qaadin. boqolkaaga aad dhigatay oo sideeda xitaa waa helaysaa. marka waxaan go'aansaday asxaab fara badan oo Afrika iyo Soomaaliya iyo qaar dunida dacaladeeda jooga oo ku dhiban isticmaalka exchange-yada centralized ka ah inaan bal fursadan usoo gudbiyo. appkan waxaa la dhahaa DYDX. website-na wuu leeyahay oo caadi laptop-ka waa ka geli kartaa. haddaa u baahan tahay App Store-ka iyo Play Store-ka labadaba wuu ku jiraa, waa kasoo dejisan kartaa. appka halkan uu ku keena. halkan markuu ku keeno waxaad taabanaysaa calaamadan play-ga ah ee hoos ku taalo baad taabanaysaa. 4 calaamadood 5 calaamadood ee hoos ku taalo midkan dhexe ee play-ga ku qorantaa taabanaysaa. kadibna halkan ku soo baxayso start baad leedahay. waxaad kusoo xiraysaa wallet-kaaga haddaa haysatid Trust Wallet iyo haddaa haysatid MetaMask intaba, iyo wallet kaleba uu ku qaadanaya. marka halkanaad get started baad taabanaysaa. wallet-ka arabtid baad kusoo xiranaysaa. marka okay, anu maanta hadda waxaan tusayaa bal MetaMask aan kusoo xiraysaan. waa isku qaacido kulligood intan uu ku marsay. marka koowaad linki buu ku leeyahay, mar labaad baa haddana wuxuu ku leeyahay verify your ownership, mar saddexaadna enable trading. saddexdaas jeer baad okay ku leedahay. good. hadda marka MetaMask-iga baan kusoo xiraynaa. sign in baa leedahay. mar labaad baa haddana sign in baa ku leedahay. trading-ka aqbalaysa, ownership-ka aqbashay. marka ugu dambeysana trading-ka aqbalaysaa. good. halkana kuu soo baxday. marka shaashada markay sidaa kugu soo baxdo bartii haddaa mar labaad ku celinaysaa waa taabanaysaa. halkaas markaad taabatid waxaa rabtaa marka inaad soo iibsatid, maadaama aysan lacag kugu jirin. anagu hadda trading-ka iyo qaybtaas insha allahu tacaala adaa research-kaaga ku samayn doono, laakiin aniga waxaan rabaa hadda inaan ku tuso saa usoo iibsan kartid stable coin-ka. stable coin-ka hadda uu ku ogol yahay oon soo iibsan karno waa USDC iyo USDT iyo waxaas waa all stable isku mid waaye. marka USDC baan soo iibsanaynaa. halkaa markaad taabatay qaybtan hoose meesha buy ay ku qoranta maaragta buy now halkan ay ku qoranta baad taabanaysaa. halkaa markaad taabatid buy DCC baa leedahay. USDC Chrome-ka uu kuu soo qaadaya iyo halkii browser-kaaga ah. halkaan uu ku keenay. marka halka markaad timaado waxaad samaynaysaa amount-iga aad rabtid baa halkan gashay. horta haddaa isticmaashid lacagtaa isticmaashid baa halkan ka dooran kartaa. markaasuu difference lacag alla lacagtaa isticmaashaa halkan ka dooranaysaa. waad aragtaa soma. iniga marka hadda waxaa idinku tusayaa euro, laakiin haddaad doonto dollar waa isticmaali kartaa. waad garata soma. iyo lacago kale fara badan baa halka ku jira. aniga eurodan dooran marka. okay, tijaabo ahaan baan rabaa inaan idin tuso. waxaan taabanaynaa $50 €50 iyo $50 waa isku mid yihiin. lacagta waxaa ku bixintaa qaybo kala duwan. halkan waxaa ujeednaa, halkaasaan taabanayna waxaa ujeedaa select transfer type.
noocyada aad lacagta ku transfer gareyn rabtid halkan ka fiiri buu ku leeyahay. meeshan aniga app store-kayga ku tusaya, Apple Pay-gayga ku tusaya, laakiin maadaama aan taleefanka isticmaala iPhone uu yahay buu halkaas kaa tusaya Apple Pay-ga. laakiin haddaad sii taabatid optionno kaloo badan buu leeyahay. wuxuu ku tusayaa halkaas markaad sii taabatid marka labadaas kore waxaan umaleynaa dadka Africa jooga waxba uma galaan, ma isticmaali karaan. marka labadan hoose baan rabaa inaan wax idinka tuso. Google Pay qofkii yaqaano oo Google Pay kaarkiisa kusoo xiran kara, Google Pay wuu ka isticmaali karaa isagoo wax fiisa bixin. soo ma jeedid, zero fees weeye. haddii marka Google Pay uu dhib kugu yahay oodan kusoo xiran karina, Visa kaarkaaga iyo Master kaarkaaga si caadi ah baa uga iibsan kartaa adoo bixinaya 2%. laakiin haddaa Google Pay Master kaarkaaga kusoo xiratid zero fees weeye. waa aragta soma. marka Google Pay inaad kusoo xiratidna waa wax aad iyo aad iskaga fudud oo sahlan. haddii aad ku dhibaysana waxaa kasoo codsan kartaa commentiga insha allahu tacaala, qaybta commentiga kasoo codso insha allah. video kale idinkaga soo sameynaa. marka waxaan taabanayna marka Visa kaarkeena. Visa kaarkeena markaan taabano waa ujeedaa. Visa kaarkeena markaan taabanay 1.99% aa naga go-ayso gateway fees. soo ma aragtid, gateway fees baa weliba naga go-ay. create baan nahna marka. create markaan niri labadaas meelood baa calaamaddaa saaraysaa, halkaana emailkaaga gelinaysaa. emailkaaga markaa gelisa email verification buu kuu soo diraya. verification emailka uu kuu soo diray baad halkaas sii gelinaysaa. okay, let me go and get waa one time 13.79 verify. email numberka emailkaaga markuu verify gareeyo card numberkaaga baa halkaas gelinaysaa. aakhirkii baan joognaa. soo ma aragtid, kaarkaaga gelinaysaa, kaarkaaga magaciisa halkaas gelina. horta magacaaga gelinaysaa, card numberkaaga gelinaysaa, datekii iyo taariikhdiiba gelin. datekii iyo taariikhda markaa gelisid deetana continue baa leedahay. lacagta uu kaa goosanaa wabillahi tawfiiq. lacagtaadina waxay automatic ugu galaysaa walletkaagii. address walletkii uu dusha sare kaa tusayay bay kuu galaysaa. halkaasay sheeka ku dhamaatay. lacagtaadii stable coin-ka ahaa walletkaagii baa ku haysataa. wabillahi tawfiiq. adaa u baahan tahay ma jirto, waa isku filanta. soo ma adan garan. marka insha allahu tacaala intaas baan rabay inaan idinkugu soo gudbiyo. walaalo badan waxaan arkay caawinaad weydiisanayo oo u baahan meel ay ka iibsadaan. marka insha allahu tacaala ciddii isku filan way isku filan tahay. ciddii caawinaad kaloo dheeri u baahdanna dee insha allahu asxaabteeda iyo way la xiriiri kartaa. haddii wax kaloo dheeri aad u baahantihiin commentiga igula wadaaga ama groupka aad ka soo codsan kartaa. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.